kulantii wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada roodka dhacdooyinka barnaamijka waxaan ku eegi doonnaa guddiga doorashada ee maamul goboleedka Hiirshabeelle ayaa shaaciyay jadwalka doorashada 6 kursi oo ka mid ah golaha shacabka ee Beledweyne kaas oo uu ka mid yahay kursiga la rumaysan yahay inuu ku tartamayo taliyii hore ee sirdoonka Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir haddana la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku soo dhowaada mar kale iyo roodka dhacdooyinka waxay guddiga sheegeen in doorashada kuraastaas ay dhacayso axadda nagu soo aadan inkastoo uusan si shacab baxsan u sheegin haddana Fahad ayaa la rumaysan yahay inuu u tartamayo kursiga hob 86 ee deegaan doorashadiisu tahay Beledweyne iyadoo ay magaalada joogaan odayaal iyo ergo beeshiisa ah oo aan si qarsoonayn ugu ololaynaya Fahad Yaasiin kursiga hadal hayntiisana waxaa sii xoojiyay Fahad Yaasiin waxaa loo haystay arrin ay ka mid tahay kiiska ikraan tahliil kursiga hadduu Fahad ku guulaysto waxay siinaysaa xasaanad waa kursi muujinaya jiritaanka nolosha siyaasadeed ee Fahad Yaasiin Xaaji Daahir hadal haynta waxaa keenay waa shakhsiyaadka meesha u tartamaya waa laba shakhsi oo awood ku leh siyaasadda Soomaaliya midna waa dawladdii hore oo waa Faarax Cabdulqaadir sidoo kale midna waa dawladda iminka jirta oo waa Fahad Yaasiin labadan mas'uul ayaa door weyn ku leh siyaasadda Soomaaliya Fahad ayaa la rumaysan yahay inuu xiriir wanaagsan kala dhaxeeyo maamulka ka jira Beledweyne iyo madaxweynaha Hiirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen warar hoose aanu helayno ayaa sheegaya in madaxweyne Guudlaawe isku dayay inuu dejiyo xiisadda si Fahad uu helo fursad uu ku tartamo waana dimuqraadiyad in kursi lagu tartamo Guudlaawe oo loo malaynayo inuu u janjeero dhanka Fahad Yaasiin haddaba muxuu yahay miisaanka uu leeyahay kursigan oo uu ku tartamaya Fahad Yaasiin miisaan weyn ayuu ku dhex leeyahay siyaasadda Soomaaliya waxay isku hayaan xildhibaanka hadda ku fadhiya kursiga ee Faarax Cabdulqaadir oo aad ugu dhow madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud halka Faarax Cabdulqaadir uu saameyn xooggan ku lahaa dawladdii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud dhanka kale Fahad Yaasiin waxa uu saameyn weyn ku leeyahay dawladda haatan jirta yahayna la taliyaha khaaska ah ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dadka siyaasadda Soomaaliya aadka u falanqeeyo ayaa ku tilmaamay inay yihiin laba milkiila dawladdii hore iyo mid haatan jirta oo isku haysta kursigan wuxuu kursigan muhiimad weyn u leeyahay dhinaca ay u janjeerto siyaasadda Soomaaliya warar hoose ayaa sheegaya in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu ku cadaadinayo guddiga hirgelinta doorashada ee heer federaal in uu joojiyo qabashada doorashada kursiga hob 86 kaas oo uu doonayo Fahad Yaasiin oo la taliye ah amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya xubno ka tirsan guddiga oo ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha uusan sheegin sababta uu rabo in dib loo dhigo doorashada kursigaas oo uu hadda ku fadhiyo Faarax Cabdulqaadir oo mar ahaa wasiirka cadaaladda ee Soomaaliya lama oga go'aanka uu guddiga ka qaatay dalabka ra'iisul wasaaraha iyo in la joojin doono qabashada doorashada hob 86 xildhibaan Faarax ayaa hadda howlo caafimaad ugu maqan dalka dibaddiisa xiriirka ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo Fahad Yaasiin ayaa xumaa tan iyo markii bishii Sebtembar 2021 uu ka qaaday xilka la taliyaha hay'adda awoodda badan ee NISA arrinta doorashada kursigan iyo musharaxnimada Fahad Yaasiin ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii dhawaan garoonka aadan cadde laga celiyay Cabdiwali Muudey oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka 10aad oo u tartamayay kursi yaala magaalada Baraawe waxa aad la isla dhaxmaraya qaar ka mid ah warbaahinta maxalliga ahna ay tabisay in Fahad uu doonayo inuu u tartamo kursiga guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka 10aad taasina ay tahay sababta rasmiga ah ee loo malaynayo in Muudey looga hor istaagay doorashada Baraawe Cabdiwali Muudey ayaa 2 jeer oo isku xigta noqday guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka xilkaas oo ah qondo ay mar kasta helaan beelaha dhibic shanta ah ee nidaamka wax qaybsiga siyaasadda Soomaaliya ee 4.5 xildhibaan Faarax Cabdulqaadir ayaa doorashadii 2017 u tartamay kursigan guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka oo marka masraxa siyaasadda la joogo loo arko kursi aad muhiim u ah gaar ahaan xilliyada xasaasiga ah hase yeeshee waxaa kursigan helay Cabdiwali Muudey